batuulo kee ayaa la karbaashi rabaa batuulo soo dhaweeyo adiga sheekadan kugu socotaa batuulo kee dadka nafta u keentay batuulo kee waxaan ku dhaho laga noolaa la'ya inkaari qabtaay ma garateen batuulo kee waa istaqaanaa fulay waxaa la yiri xantiisa ma mooga wuu is og yahay ma garat batuulay soo dhawow dadka nafta u keentay dadka koobreyda ku qabanaysaa dadka waxaan ku iri adiga laftigaaga waad ka shaqaysataa reaction-kaad ku nooshahay reaction-kaa wax ka cuntaa reaction-kaad maaragtay dad yoogii reaction-nadooda iyo fiidiyooyadooda kuugu jireen ayaad koobrayd dhab ku siisa ma garat yaa qabiil nacay ma ahane ma dhibaana reacti ku ah reactiyaasha waa ma dhibaan maceeb baa qof hebel qabiilkaasa reacto ama qabiilkaas u ka dhashay ceeb ma aha ma garat dadkana batuulo kay way ku dhunsan yihiin waxay u maleeyaan inuuna weligiis guursanin batuulo kay gabar abtigiis dhalay ayaa lagu daray oo Mareykanka ka timid markii lagu daray 3 bilood ayay isqabeen ma garat batuulo kay 3 bilood markay isqabeen waa ay laabatay markay laabato waxay tiri saaxiib batuulo kay isaafur dadkii abtiyaashiis dadkii oo dhan isku fariistay ilaa gabadha qaraabay yihiin ma dhibaankooda macnaa dhinaca reactigeeda ka socod midamaanay gabadhan markii la yiri batuulo kay xaayna dhex maray gabadhii la weydiiyay waxay tiri gabar la seexan karta waa maya aniga waxay tiri intaasaan u qorinaayay maadaama ay dhashay eedaday batuulo kay aniga waxay tiri kuma tiriye tiri intaasaan waa iska agjiifeetay ma garat batuulo kay madaxayga haysiis sidii afruunka oo loo furay yaraantiisiina batuulo kay adeerkiis hooyadiis qabo ayaa garaaci jiray ilaa hooyadiis aabiis ma qabaana aabiisna islaan kale uu qabaa hooyadeedna nin kale qabo ma garat saytaha ayaa loo garaaci jiray waa la garaaci jiray waxaan ku iri cuqdadu ku soo koray dhibaato ku soo koray ma garat la adeerkiisa haysan jiray asna waa dhiblow la wiil waxa hooyis dil guursado waxa waa xinu bilaaba gowsaha adeerkii asaga tartan dagaal markii dambe wuxuu bilaabay inuu guriga ka cararo uu bilaabo maaragtay darbi jiifnimo uu ka taga reerkii darbi jiif iskaga ahaa oo garaabu aruurinaay oo meelaha uu gudgadaay batuulo kay aan wadaa oo hadda kibirtay ma garat sida suu ahaa ayaa dhalinyaro u imaadeen maalin waxay ku dhaheen batuulo kay haddii aan tahriibno ka waran batuulo kay waxay iska soo jirta aniga waxaan haysto wiilashaas wiil ka mid ah wuxuu yiri batuulo kay aniga yaa hooyaday ayaa wax ka soo xaday dahabaan ka soo xaday ma garat hadhowna waa usoo gudaaya hadduu ilaahay yiraahdo ilaan boos ii gadoo iga diidaye dahabaan ka soo qaata adigana hooyadaa gurigeeda tagay dahab ku soo xaday batuulo kay xafay dhahday dahab yaray soo xadda marka oo yiriso oo ilaa Liibiya geynayso ma garateen batuulo kay markii Liibiya la tagay ilaa dhalinyaradan dahab waaweyn iyo qaar waxaan ku lacag haysteen oo cidooda boosas u gadeen iyo way soo wada raaceen alxaasil markay israaceen oo Liibiya la tagay batuulo kay waa xanuunsatay lacagtii ka go'day dhalinyaradii caloosha hurtay xoogaa lacag ay wataan waxay dheen batuulo kay maxaan ku sameynaa batuulo kay waxaa la yiri saan looguma tegi karo maadaama soo raacnay annakaan ku dhalinay dhehen taabkii oo gatan way bixin soo maaha waa la raadiyay waxaa la ogaaday Liibiya inay joogto batuulo kay korkii way xanuunsatay tirxiya ka gal korkii dhud gaajo rafaa waxaan ku iri yaa kaadi cabtoy caadi u noqday kaadidiisu caabi ma garat isbitaalka dhalinyarada seexiyeen markay seexiyeen 2 bilood ku jiray waa dhalinyaro gob ahad iyada haday ahaa lahayd way ka tagi lahayd ilaa meel oo maaragtay aniga waxa ma sheegin ee ka soo jeedaa ma garat batuulo kay waxay samaysay markii ay bogsatay dhalinyaradu waxay dhaheen lacag yar wadanaa nin yahow batuulo kay istaala ku geynay
waa raysatay reerihiina waco hooyadaa waco batuulkay waxay tiri hooyadeen dahab ka soo xaday maan dhihi karaa haddana hooyay libyaan joogaa waaye maxaan samaynayaa layidhi isaguu yidhi tu aan furay oo wuxuu yidhi aftigee dhalo maraykan jirto ilaa wuxuu yidhi muxuu ahayti aftigee hooyadeel dhashaa dhalay haddii las furo xataa waxaa waaye meel cilla igama tegaysay ayadaan ay furitiri ayadaan wacanaya ayadii wacday adi lacag 500 gaaraysa usoo dirtay doontana 1500 lagu koraay baaya intaan way ugu yartaa ma haayee tiri aniga ama reerkiina u laabo wiilashaas fiiriyeen Soomaalida meesha joogtay la dhexgal oo doonta isla kor rabeen batuulkay miskiin waay ma ka tagi karno hadda inta ku xanuunsatay korkii aad xiri ka galay kaadii cabtay halaanka badan ma fiirsan karnee konton iyo boqol hal isugu daro sidii ayaa doonta lagu saaray batuulkay sidii ayay ku tagtay story ay ku tagtay ma garatay batuulkay halkaas markay tagtay dhaqlay bilowday waa ay kibirtay dadkii u soo dhigata marka dadkii ayay ku soo jeesatay wiilashaas wiil kamida oo waxaa jiro wiilashaas marka wiilal kamida oo waxaa jiro wuxuu yiri batuulkay waa tii aan saaxiibada ahayn waa tii isbitaalka aan geynay waa tii aan ku rafaadnay waa tii wuxuu yiri aan lacag u aruurinay maalmaha kamida Facebook ka salaam yaa tahay war hebelkii aan ahay war hebelkii lacagta ku aruurinayay oo isbitaalada ku geynayay war sidan ilaa hostelgiisa dhan uu yaqaanay uu og yahay baloog dhakab dhalinyaradii isla soo tariibeen oo dhan oo lacag ka soo bixiyay baloogu saaray dhakac ma garateen marka batuulkay inkaarey qabtaa been inima sheegaayo dadkii oo dhan ka cabaadeen waxaa waaye Soomaalidan ayaa meesha ku geystay ilaahay ka sokow ayaga ku geeyeen ayaga ku bushgareeyeen ayaga ku wadwadeen ma garat walaalaha wiilal walaalaha oo ka yar ayaad ma aragtay si xun ula dhaqantay iyo gabdhabo ma garat wada cajuusana waa tahay wada batuulkay wada cajuusadna waa tahay ma garat dadku waxay ku malay inaad soo guursan laakiin hore u soo guursatay gabar aftiga dhalay yaa oo reebtiga ah lama dhiman reebtiyaasha yihiin waa dhakab lagu guursiyo ma garat kadibna waxay tiri aniga ninka ma biyan facay batuulkay yaa isniinakay asalna hay tiri marka waxa iga ma qaadaye laga furo ma garat marka batuuloy ma fiicno saxankii aad wax ku cuntay inaad ku xaartid oo barraq ah ku siisay waa laga fiican yahay dadka Soomaalida ah yaa aad adiga fiidiyoyadood aad aruursanaysid ha yaraada ha weynaade oo ku irsaaqaysid adigana in lagu soo qaato aad diidaysid taas waxa ma arkaade afkii waxbaan ka celcelinaya yaa ma garat meel ayaa salka ku heesaa loola dadka aan oga hadii aad ahaan lahayd waxaas kuma dhaqmeen way ka faani lahayn caadi aa isku diraa laakiin qof fiidiyooga soo qaata adna aad fiidiyooyadiisi kuugu kaaga buuxo YouTube-ka aad dhaqab ku siisid baash copyright la dhahay aad iyo aad wax maay wax jira ma tihid korka ka soo baqbaqay ugu yaro rees ma gaartay xitaa milid badac aan ku aqaana ma garat kuma sii tarax tagaayo batuulkay way istaqaanaa magacaas naana iga dheh waaye ma garateen xaasid lambardiyeesha waaye cadow waaye dadka xitaa oo reaction ka bixinaa wuxuu dhahaa marka hore isoo amaanaya wariyaa isoo amaan adigana yaa batuulkay saan waaye batuulkay inta ka roortay batuulkay waa fakatay batuulkay ya gaari karaa kadib waaye markaas waxaa maqla lacagna inaad ka qaadatid lacag isoo diriga dheh lacagna waad ka qaadataa dadkaas ma garat dhib ma laha anyway lacag ka qaad kartaa waxaagaada iskale ma garat marka walaalahayga aan jeclahay
sira badan ayaan hayaa laakiin ma rabo inaan ku taraxtago tuulakey dadkii oo dhan way ingirtay ma garatay marka waxaan ku yiri dee lagu habaar shacabki ku nac jisaar janamo galaa la yiri marka walaaleygaan jeclahay sii sheer gareeya subscribe dhac ku siiya laagta kore ii badiya tuulakey dadka ilaahay ha ka qabto wada ooynayaan dadkii oo dhan ma garatay walaaleygaan jeclahay sii sheer gareey oo nanac ka siiya yaahe waa naciimo gubad walaashiin waa miskiintii dhac ku siiya